نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. qisadeena maanta waxay ka sheekeynaysaa dabkii lagu tuuray nebi ibraahim calayhi salaam. markii uu nebi ibraahim calayhi salaam uu qoomkiisii uu ka jajabiyey sanabyadii ay caabudayeen oo dhan, isaga oo u soo reebay midkoodii ugu weynaa waa sanabyada waxay qoomkiisii u qaadeen cadaawad ba'an. ibraahim calayhi salaam wuxuu isku dayey inuu qoomkiisa ka waaniyo caabudidda iyo u shariigyeelidda Alle. kuwii sanabyada caabudi jiray waxaa ka mid ahaa nebi ibraahim aabbihii. wuxuu ibraahim isku dayey inuu aabbihii ka waaniyo xumaanta uu ku jiray, laakiin nebi ibraahim aabbihii wuxuu doortay dariiqa shayddaanka. markii ibraahim calayhi salaam uu ka jajabiyey sanabyadii ay caabudayeen, ayay iyaga oo xiimaya u yimaadeen oo kala doodeen sababta uu sidaasi ugu sameeyey ilaahyadooda. wuxuu ibraahim calayhi salaam hadalkii ugu soo gebagabeeyey: qaala afatacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shay'an walaa yadurukum. wuxuu yidhi ibraahim, ma waxaad haddaba caabudaysaan alle la jirkiisa, yacni alle waxaanan ahayn, waxaanan waxna idin tari karin, waxna idin yeeli karin. uffin lakum walima tacbuduuna min duuni illaah afalaa tacqiluun. qurun baad leedihiin idinka iyo waxaad la gees iyo barbar caabudaan alle, ma waydaanan garasho lahayn. markii ibraahim calayhi salaam intaasi uu ku yidhi oo ilaahyadoodii sanabyada ahaa u caayay, ayay dhammaantood isku tageen. waxay go'aan ku gaareen in ibraahim isaga oo dhan dab lagu tuuro si nolosha loogu gubo isaga oo dhan. waxay bilaabeen inay xaabo ka keenaan meel kasta. waxay isku soo ururinayeen xaabadaasi muddo dheer, heer markii ay naagi xanuunsato ay sharad ku geli jirtay haddii ay caafimaaddo inay soo guri doonto xaabo si ay ugu shubto dabkii lagu gubi doono ibraahim. markii ay dabkii ku diyaarinayeen dhul gawaan ah oo dabkii dhimbilihiisa la mooday inay cirka taabanayaan, ayay soo qabteen nebi ibraahim calayhi salaam oo garbaduub u xidheen. intaasi kadibna waxay saareen kafada gantaal uu sameeyey nin asalkiisi uu ahaa kurdi oo lagu magacaabi jiray haysan. waana ninkii ugu horeeyey ee sameeya gantaalka afka carabiga loo yaqaan manjaaniiq, afka ingilishkana lagu yidhaahdo mangonal. waxaa la sheegaa in ninkaasi uu dhulka liqay, wuxuuna ilaa iyo maanta ku sii quusayaa dhulka hoostiisa ilaa iyo maalinta qiyaamahana ay ka dhacayso uu dhulka sidaasi ugu sii quusayo. markii silsiladihii lagu xidhay nebi ibraahim calayhi salaam oo dabkii in lagu tuuro oo keliya ay u harsanayd, ayuu nebi ibraahim wuxuu yaabay inuu alle weyne kaalmo weyddiisto, isaga oo lahaa: laa ilaaha ila allah, ma jiro alle xaq ah aanan ka ahayn alle weyne. subxaanak rabbialcaalamiin, adigaa ka nasahan ceeb oo dhan rabbiga uumankow. laka alxamdu, adigaa ammaan iyo mahad idilkeed leh. walaka almulku, adigaa awood iyo boqortooyo idilkeed leh. laa shariika lak, ma lihid shariik wax kula wadaaga adiga. markii nebi ibraahim dabkii lagu tuuray wuxuu yidhi: xasbuna allah wa nicma alwakiil. allaah baa nugu filan oo alle muxuu yahay wakiil iyo difaaco wanaagsan. waxaa la soo wariyaa ibraahim markii dabkii lagu tuuray oo weli uu hawada ku sii jiro, yacni uusan weli dabkii ku dhicin, ayaa waxaa u soo dhowaaday jibriil oo ku yidhi:
ibraahiimow ma u baahan tahay wax kaalmo ah markaasuu ibraahiim ugu jawaabay haddii ay tahay kaalmo adiga xaggaaga ah maya uma baahni sidaasi oo kale waxaa la soo wariyaa in malagga roobka uu isagana uu lahaa goorma ayaa lii amri doonaa inaan ku shubo hal roob si aan dabka u bakhtiyo laakiin amarka alle baa ka sii degdeg badnaa waxaasi oo idil oo allaah dabkii ayuu si toosa ula hadlay kuna yidhi قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم waxaan ku nidhi dabkii dabkow u noqo ibraahiim qabow iyo nabad yacni u noqo qabow oo nabadgeli isaga ibraahiim si uusan ugu geeriyoon qabowga dartii saa markii uu dabkii ku dhacay ibraahiim calayhi salaam dabkii wuxuu bilaabay inuu cuno keliya silsiladihii lagu soo xiray nebi ibraahiim calayhi salaam waxaana la sheegaa in dabkaasi uu ku jiray nebi ibraahiim calayhi salaam 40 maalmood ama 50 maalmood markii dabkii lagu tuurayna waxaa dabka dhexdiisa ku wehlinayay jibriil calayhi salaam oo dhididka ka masaxayay allow ku salli oo sallim ibraahiim qoomkii ibraahiim waxay doonayeen inay ka argoostaan waase la duleeyey waxay doonayeen inay kor ka ahaadaan waxaase laga yeelay kuwa iyaga ka hooseeya oo ka liita وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصص النبوي qisooyinka nebiyada